munaasabada tan oo ka dhacday magaalada Garowe ayaa ahayd xafladda xilwareejinta gudoomiyihii hore ee hantidhowrka guud ee dawladda Puntland iyo gudoomiyaha cusub ee hantidhowrka guud ee dawladda Puntland. munaasabadan oo si balaaran loo soo agaasimay waxaa goobjoog ahaa agaasimaha guud ee madaxtooyada dawladda Puntland, mas'uuliyiin ka tirsan laamaha cadaaladda Puntland iyo guddiga xilwareejinada xarumaha dawliga ah ee Puntland. gudoomiyihii hore ee xafiiska hantidhowrka guud ee dawladda Puntland Cabdirasaaq Cumar Faarax ayaa ka warbixiyay muddadii uu xilka joogay waxyaabihii uu qabsoomay. anigoo soo koobay qodobada dulsaagaya xafiisku wuxuu diyaariyay wax ka beddelka xeerka hantidhowrka guud oo hadda hor yaalla walaa xukuumadda aan usoo bandhignay. waxaana rajaynaynaa insha allah inay ansixiyaan si baarlamaanka lagu gudbiyo. la'aantii sharcigaasi xafiisku ma shaqayn karo sida ka warqabtaan xeerka lagu shaqeeyo haddeer waa lambar 15,000 wuxuu ka horeeyaa dastuurka dawladda Puntland muddo 12 sano. qodobka labaad, xafiisku wuxuu soo kordhinay intaan joognay dhismo xafiisyo oo aan ku kordhinay xarunta dhexe iyo xafiisyo cusub aan ka horgelinay gobollada Mudug iyo Karkaar oo iyagana u dhammaystiran yihiin qalabayntiisii oo dhan lagana hawlgalo haddeer maamul iyo shaqaalo. qodobka saddexaad, waxaanu tageynay shaqaalaha xafiiska iyo habka baarisaha. waxaa ilaahay mahadiya in xafiiska aan kusoo kordhinay intaan joognay dhalinyaro khibrad u leh xisaabaadka, loona tababaray tababaro badan oo la siiyey dal iyo dibadda ah, kana faa'iidaystay la taliyaasha xafiiskan soo maray khibradii ay hayeen kala wareegay. sidoo kale waxaanu tageynay habka baarista oo maanta ilaahay mahadiya waxaa shirkadaha caalamiga ah hadda aan wax wada baarno riboorada soo saaraan iyo riboorada hantidhowrka Puntland soo saaro inay isku mid yihiin. qodobka xiga oo ugu dambeeya waxaan kordhin miisaaniyadda intii aanu joognay. waa ilaahay mahadii meeshii aan ugu nimi meel laba jibaar ka badan bay joogtaa. arrintaas oo ka qayb qaadatay iyaduna fududaynta shaqooyinka xafiiska u yaalla ee baaxadda badan. runtii waxqabadka xafiiska anoo raba inaanu waqtiga dheerayn waxaan kusoo koobi karno kelmad iyo laba iyo hadal maaha. waxaan intaa raacin lahaa xafiiskani waa xafiis dalka muhiim u ah. waa xafiiskii la rabay inuu kaantaroolo tayada shaqada in la qabtay iyo in aan la qaban. waxaana soo dhaweynayaa marka koowaad gudoomiyaha cusub ee loo magacaabay xafiisakan oo runtii nimaan xafiiskan ku cusbayn ah, muddo 8 sanaana ka aha la taliye mudane Cusmaan Qorofay, ahna khabiir dhanka xisaabaadka oo aan bas leeyahay waa dadka ugu horeeya xagga xisaabaadka Soomaalida. marka waxaan leenahay mudane soo dhaweyn kadib mas'uuliyadda culayska badan waa kugu ducaynaynaa ilaahay kugu asturo. waa xil aad u culus, xilkana la isugu mahadceliyay waa isugu ducaynaa mudane hawsha Allah ku fududeeyo. qaar ka mid ah mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan laamaha dawladda Puntland oo munaasabada ka hadlay ayaa iyaguna ka sheekeeyay muhiimadda uu xafiiska hantidhowrka guud u leeyahay dawlad dhiska Puntland. runtii annaga ka xisaabaad ahaan waxaa naga dhaxaysay annaga iyo hantidhowrka shaqo fiican ayaa naga dhaxaysay. si close ahna waa u wada shaqaynaynay. sidaas si la midana waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala Ismaan iyo tiimkiisa inaan wada shaqayno. hadalka badin maayo. saaxiibkay Cabdirasaaq waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala guul iyo mustaqbal wanaagsan. ninka la soo dhaweyn waxaan leenahay gudoomiye Ismaan aqoon fiican baan leenahay. runtii shaqada ka bixi kara oo wanaagsan weeye. Allah ku fududeeyo sidoo gudoomiyuhu sheegay. gudoomiye Cabdirasaaq aqoon badan baan leeyahay. maayar bisoo aan jiriyo waxqabadkiisa meesha joogto baa loo garanayaa. qofka waxa weeye waxa loo dhiibay meesha markuu ka tagaayo iyo markii uu joogay hore meesha wuxuu ku qabtay isbedelka halkaas la garan karaa. marka uma baahna faan badan oo ma celina wuxuu qabtay runtii. annagu waxaanu hay'adaha maaliyadda aad muxuu ahay runtii ay wada shaqeeyaan. waan soo dhaweynaa gudoomiyaha cusub si fiican iyo salmid aan u shaqeynaa. waxa loo shaqeeyaa system qof lama shaqeeyo. systemka ayaa la shaqeeyaa.
waxaan rabnaa odhidka dadku waa ka baqaan marka odhid la yidhahdo hantidhowr wax balaasas baa laga qabaa laakiin ma aha waxa la toosinaya waa procedure iyo system baa la toosinayaa gudoomiyaha cusub ee xafiiska hantidhowrka guud ee dowladda Puntland Cismaan Maxamuud Cali Qaroofe ayaa ku ammaanay gudoomiyihii hore muddadii uu xafiiska joogay shaqooyinkii uu qabsoomay xafiiskan sida hadda loo xusay xafiis aan ku cusbahay maaha waxaan ka soo ahaan jiray la taliye inkastoo hadda aan ka maqnaa ilaa 2007kii hadda markaan imid iyo waxa ii muuqda xafiiskii waagii aan joogay waa ka ballaaran yahay hadday tahay xafiisyo iyo hadday tahay shaqaale warbixinta la isiinayana shaqo badan baa socota anigana waxaan rabaa inaan meeshii gudoomiyaha uu keenay iyo xafiiska la keenay inaan ka sii ambaqaado oo aan hore u sii mariyo haddii ilaahay yidhaahdo taa markaan halkaa uga baxo intii xafiiska hadda la ii magacaabay ilaa talaadadii iyo wixii hadda ka dambeeyey waxaa mahadcelin badan iyo dad badan oo hambalyo iyo bogaadin iyo waa la soo diraya dadka aad baa loo danaynayaa xafiiskan hantidhowrka muhiimadiisana waa wada garanaynaa akhyaarta igu horeysana waa ka sheekeeyaan baahi badan bay u qabaan wadanka Soomaaliya waa la socotaan waxaa la yiraahdaa waa wadamada musuqmaasuqa iyo ugu hooseeya adduunka ugu manaa sumcaduma noo taala marka waxaan rajaynayaa oo iga guuxaya in aan sumcadxumadaas Soomaaliya u taala inaan xafiiskan maadaama Puntland ay tahay statekii ugu weynaa uguna horeeyay inaan tusaale u noqono oo aanu muxuu ahay aan sumcaddii ka qaadno haddii ilaahay yiraahdo fahamka hantidhowrka dadka ay ka qabaan waxa ugu horeeya waxa weeye maamul sixid in dadkii la saxo maamulkii laga saxo maamul wanaag lagu baraarujiyo wixii khaldan loo tilmaamo sidii loo sixi lahaa wacyigelin iyo aqoon maartay haadihii ka shaqeynayay maamulka iyo ama xilalka hayay mas'uuliyaadka dawladda waliba dhinaca maartay maamulka maaliyadda iyo marka hawsheenu waxay noqon doontaa marka ugu horeysaba aqoon iyo wacyigelin iyo sixid iyo bay u badnaan doontaa agaasimaha guud ee madaxtooyada dowladda Puntland Maxamed Jaac Cabdiraxmaan oo munaasabada tan soo xiray ayaa kula dardaarmay mas'uuliyiinta cusub ee xafiiska hantidhowrka guud ee dowladda Puntland in shaqooyinka hor yaalla ay u gutaan si hufan sidoo kalena waxa uu ammaanay gudoomiyihii hore ee xafiiska hantidhowrka guud ee Puntland hantidhowrku waa hay'ad loo sameeyay hufnaanta dowladnimada iyo maamul wanaag taasoo la rabo inay noqoto muraayadda laga eegayo dowladnimada Puntland taasoo markaas sii dhisay wax loo yaqaano maamul wanaagga iyo good governance-ga waxayna kow u tahay hay'adaha loo yaqaano integrity institutions hay'adaha dhisa sharafta iyo hufnaanta dowladnimada haddii qurux badnaato dowladnimada Puntland oo dhan waa wada qurux badnaanaysaa haddii ay maxay hayday shaqadeedu ay leecdaan waa fahmi karnaa waxay dhici kartaa waxaan markaa aad ugu faraxsanahay in gudoomiyihii hore ay tiimkiisu shaqo fiican soo qabteen waxaan sidoo kale ku faraxsanahay hadda gudoomiye cusub oo hadda la magacaabay oo leh aqoonteedii iyo qualificationkeedii ahna nin la bidayo hufnaan fara badan madaxweynaha Puntland waa seebay magacaabista noocaas waana ugu hambaleynayaa madaxweynaha dowladda dadka reer Puntland Cismaan oo noqday gudoomiye cusub hantidhowrka Jaafar Macalin Maxamed warbaahinta dowladda Garowe